wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland sida la soo warinayna shirkii madasha wada tashiga qaran ayaa baaqday markiisii afraad warbixintan waxa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaheena Axmed Ciidi Diiri iyadoo lagu wada in magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose uu ka furmo shirka madasha wada tashiga qaran ayaa waxa maanta magaalada Kismaayo soo gaaray wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha iyo wafdigiisa oo ay kamid ahaayeen wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa waxa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo waliba ku-xigeenkiisa Mudane Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag iyo mas'uuliyiin kale inta kadib madaxweynaha dawladda Federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha Jubbaland ayaa saxaafadda kula hadlay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo السلام على رسول الله. هذه أيوة ما تسمى من أحمد حكم من مجال الجوهر وإن شاء الله بصوف من الشركة ومصممين كلام وضلك الصومالي مهم هو مجال الكسمايو وحكى سعود كرة بالنارم ومحمد كرة هذا الشرع يأتي قابك سياسة لو جهاي أما لو جهاي لو كلام حتى يسوي من الجاليات والقشرات والدارستاس كان مزيدي شركة هرو الله بالله بشة جنوي طبعا كده هرو وقت الله بالله شركة وتشيء قرن سوق القديم قالوا هذه النوع سوق من ذي كلامه هو نعمله مركا دولة جبلان يضبط رد جبلان وأوجا ما هاد علينا سوداوين تجرين ترى مرتقب من الشركة المانتا هالكان يسوق كينان dhanka kale wasiirka warfaafinta Jubbaland oo saxaafadda kula hadlay aqalka martida ayaa sheegay in maalinta berita uu si rasmi ah u furmi doono shirka madasha wada tashiga qaran shirka ma baaqan dibna uma dhicin madaxweynaha howl qalan ku maqnaa Jowhara waxa ka furmay shirkii maamul sameyntii Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe halkaas ku maqnaa runtiina madaxweynaha uu soo dadaalo shirkaas uu ka soo duulay Jowhar toos Kismaayo uu soo dagay marka hadii alla bariyo furmay shirka Axmed Ciidi Diiriye Somali Channel magaalada Kismaayo